doona khasaare ka dhashay dagaal xoogan oo haatan macawisleyda beesha xawaale ay ku qaaday deegaanka Awoorey ee dhaca gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. xogtii ugu dambeysay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi xoogan ee macawisleyda beesha xawaale ay ku qaaday Awoorey ayaan kula wadaagi doona barnaamijkeena intii u socdo. Channelka subscribe isaar hadduu subscribe ku heen muuqaalka like saar share garee gaarsii saaxiibadaada mahadsanid mar kale. waxaan daawaday mar kale soo dhawow haatan aan kula hadlayo deegaanka Awoorey ee dhaca gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya waxaa ka socda dagaal xoogan oo ay qaadeen macawisleyda beeshaasi xawaale ay ku qaadeen deegaankaasi Awoorey. shalay hayay macawisleyda beesha xawaale waxay dagaal xoogan ku qaaday deegaanka Mabaax ee hoos taga degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan. hase ahaatee mar kale hayay caawa waxa ay dagaal xoogan ku qaadeen deegaankaasi Awoorey ee dhaca gobolka Hiiraan. macawisleyda beeshan xawaale ayaa mar kale waxa ay doonaysaa sidoo kale ay u hardamayaan gacan ku haynta degmada Awoorey oo muddo bil ku dhow haatanba ay ururka al-shabaab gacanta ku hayaan sidoo kalena ay ka saari kari waayeen. markii hore Awoorey hadii aad ogeyn xogteeda waxa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa macawisleyda iskood ay ugu soo baxeen deegaankaasi Awoorey iyagoo ay wax dagaal ah ka dhicin al-shabaab ayayna u soo baneeyeen. hase ahaatee al-shabaab ayaa meeshii jir intuu isaga imaaday waxa uu Awoorey salka dhigtay kana mid noqotay Awoorey goobaha ururka al-shabaab laga bixi kari way sidoo kale ay ku dagaalamaan bixinteedan ay adkaatay muddo bil ku dhowna lagu dagaalamay. hase ahaatee macawisleyda beeshan xawaale oo dhowr mar dagaal soo qaaday hase ahaatee ku guul dareysatay ayaa mar kale waxa ay dagaal xoogan caawa ku qaaday deegaankaasi Awoorey ee dhaca gobolka Hiiraan iyagoo dagaalka hubka daryanka culus ay dadka maqli kari waayeen sidoo kalena ilaa iyo haataba dagaalka xoogiisa laga maqlaya goobo fog oo Awoorey dhowr kiiloomitir u jirto. hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa iyaga waxa ay qoteen dhulka hoostiisa sidoo kalena waa laga bixi karin waa sidii Gaza oo Israa'iil duqeynaysa ayaa hadii ay dawladda federaalka Soomaaliya si walba oo ay yeeshay ciidamo hadii ay meeshii jirto gurmad isaga keentay Awoorey gacanta ayay ka taagatay dawladda oo haatan waxa dagaalka xalay ilaa iyo saaka ilaa iyo haatan ba aan kula hadlayo wada waxa weeyaan waa macawisleyda beesha xawaale oo ahaan kari weyday in mar kale ay Awoorey ka ahaadaan ama gabi ahaanba ay Awoorey gacanta ugu jirto ururka al-shabaab. Awoorey waxa ku sugan oo ururka al-shabaab sidoo kale waxa ka qaxay dadkii deegaanka gabi ahaanba wax jooga oo nuuxsanaya ma jiraan. dadka deegaanka waxay u qaxeen goob walba oo u dhow Awoorey sida Buluburta Jalalaqsi iyo Halgan iyagoo halkaasi iska xaadiray sidoo kalena sugaya kana baqaya in Awoorey dadka iyo sidoo kale ururka al-shabaab ay isku dhex dagaalamaan iyo dawladda halkaas in dadka shacabka ay khasaare xoogan ka soo gaaraan. Awoorey waa cidlo oo wax shacab oo haatan ku sugan ma jiraan hase ahaatee dagaalka ayaa waxa uu yahay gacan ku haynta Awoorey oo ah magaalo istiraatiiji ah sidoo kalena ah magaalo jiimeed wabiga Shabeelle ku teedsan sidoo kalena beeraha xamiirada iyo sidoo kale qudaarta ay yihiin nimcada Rabbi uu bixiyay. Awoorey ayaa noqotay magaalo laga sabri kari waayay xawaadle iyo al-shabaabna isku fara saaraan dhowr mar iyagoo jilbaha isku aastay sidoo kalena gacan ku haynta Awoorey ku hardamay hase ahaatee wali kuma guuleysanin macawisleyda beeshaasi xawaadlo oo dagaalka ugu halkaasi ka wada gurmad ayaa ku socda halkaasi oo ku sii qulqulaya oo beesha xawaadle waxa ay ka keenaysaa ilaa iyo Hiiraan meesha ugu dambayso waxa ayna ku qulqulayaan sidoo kalena ay ku sii qubayaan Awoorey in mar kale ay gacanta ku dhigaan iyagoo halkaasina ay ahayd magaalo ay ku naaloodaan ururka al-shabaab inay ka saaraan ay doonayaan hase ahaatee waa ay ku adkaatay waa ay ka saari kari waayeen ciidamada dawladda oo gurmad u ahaa waa isaga baxeen oo gabi ahaanba waxa ay jiraan halka iyo masaajidka Cali Guduud iyo sidoo kale deegaanada Shabeellada Dhexe ee dhaca halkaasina ciidamada ay ku sugan yihiin oo ma jirto wax gurmad haatan Awoorey ah oo ay heli karaan beeshaasi xawaadle ka sokow in ciidamadaasi ay gurmad u noqdaan dawladda oo mar labaad ku laabata taate ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa macawisleyda markii hore isgarabsanaya ayaa dagaalka Awoorey galay hase ahaatee haatan mar kale waxa ay kali ku noqdeen ciidamadaasi macawisleyda beesha xawaale oo kaligood shafka u dhigtay jilbahan u aasay in mar kale Awoorey caawa uu ku leedin ururka al-shabaab una ku hurdin kuna seexana subaxdina uu ku soo